siyaasadeedka Rajo maanta uu lahaa wareegiisii labaad ee ololaha tartankii doorashooyinka ururada axsaabta qaranka iyo sidoo kale doorashada madaxtooyada oo noqonaya wareegiisii u dambeeyay ayaa dholatus ballaadhan ku sameeyay dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka iyadoo ololaha Rajo uu bedelay qaab khayriya oo ay ku caawinayaan dadka dhibaataysan ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee gobolada dalka sida Boorame, Hargeysa, Cerigabo, burco barbara iyo sidoo kale Gabiley iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka waxaana urur siyaasadeedka Rajo maanta uu howlgal khayriya ka fuliyay qaar ka tirsan xaafadaha degmooyinka magaalada Hargeysa oo ay ka mid yihiin xaafada Mooge B ee degmada Maxamed Mooge iyo sidoo kale Dhagax Barkato oo ka tirsan xaafadaha ku yaala magaalada Hargeysa isla markaana ay ku nool yihiin dad danyar ururka Rajo halkaasi gaarsiiyay deeqo kala duwan oo ay kaga qayb qaadeen maanta ololahooga iyagoo ujeedaduna ay tahay sidii dadkaasi dhibaataysan ay ugu bixin lahaayeen kharashaadkii loogu talagalay dabaaldegyada goobaha fagaarayaasha la isugu yimaado waxayna maanta ka dhigeen maalin khayriya si dadka loola qaybsado dhibta haddaba urur siyaasadeedka Rajo ka baxay magaalada Hargeysa gudaheega waxaa hormood u ahaa gudoomiyaha urur siyaasadeedka Rajo Mudane Cabdilaahi Dahab iyo saraakiisha ururkaasi oo iyagu si weyn dadka ugu geeyay waxyaabihii khayriga ay wadeen waxaana si weyn urur siyaasadeedka Rajo loogu soo dhaweeyay qaar ka mid ah degmooyinka ama xaafadaha magaalada Hargeysa iyagoo dadka xaafadaha Dhagax Barkato ay si weyn u soo dhaweeyeen urur siyaasadeedka Rajo iyo sidoo kale howlaha khayriga ay wadaan waxayna halkaasi gaarsiiyeen deeqo kala duwan oo ay ugu talagaleen dadka in ay la qaybsadaan halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaankaasi Dhagax Barkato oo si weyn u soo dhaw urur siyaasadeedka Rajo uu hogaaminayo Mudane Cabdilaahi Dahab waxayna dadku sheegeen inay codkooda ugu heli doonaan ururka kadib halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka Rajo iyo sidoo kale madaxda urur siyaasadeedka Rajo waxayna sheegeen inay maanta ujeedadoodu ay tahay sidii ay dadka dhibta ula qaybsan lahaayeen una dareemi lahaayeen walaalahooda dhibaataysan una geyn lahaayeen caawimo si ay uga farxiyaan dadkiina la qaybsada waqtiga adag waxaynu dareemaynaa waqtiga adageed ku jirtaan waqtigaasaynu dabacsannahay inaynu idinla qaybsanno maantana waxaynu idin leenahay haddaad doonaysaan inay noloshiinna wax ka beddeshaan waxaad noogu codaysaan codka labaad oo ah astaanta cadceedda Rajo intaasun baynu idinka baahannahay maanta hiil baynu idinka baahannahay hiilkaasna waxaad ku samayn karaysaan waa maalin ku weyn urur siyaasadeedka Rajo waa maalin ka mida maalmihii ay ku jira ololuhu siiyeen 30 bisha maanta waxay gaar u tahay urur siyaasadeedka Rajo maanta waxay garatay oo ay go'aansatay inay idin xusto oo idin xasuusato oo aanay idin soo saarin cadceedii iyo fagaarihii ay dadku ku haraadi jireen ee dhibaatada ku soo gaari jirtay iyagoo qatan oo haraadan ay ka soo noqon jireen Rajo waxay go'aansatay halka waxa inoogu yimi oo ina soo xusuustay maanta ururkeena Rajo waa ogtihiin madaxweynayaasha wadanka ka taliya dadka baahan codku waxa haya dadka danyarta ee baahan baa codka haya dadka danyarta ee baahan guryahooda ayuu codku yaalaa codka haya waa ogtiin madaxweynuhu isagoo dadku gaajo u baqteeyaan inuu kalba diyaarad ku dul marayo oo codna uu ka doonayo marka waa ogtiin ninkaa maanta ina xusuustay ee isagoo urura oo doonaya inuu xisbi noqdo yidhi maanta waxaan la qaybsanayaa dadka danyarta ah ayaan la qaybsanayaa wixii aan ku ololay xukuumaddan maanta jirta ee talinaysa ay ugu dambaysay waxyaabaha marka ay waxba ka qaban kari waayeen ee ay bedeli kari waayeen ee bulshadooda ay u naxariisan waayeen inaannu kaga bilowno ololaha yaga inaannu kaga bilowno xuska yaga iyo dareenka oo aan idinla wadaagno oo aan idinla qaybsanno baahida marba jirta sida aad u arkaysaan taagtayadu maanta inkastoo aanay buurnayn haddana waxa weeyaan ninkii waxa yar ku taraaba haddana wax weyn markaa kula wadaagaa annagu waxaannu ka bilaabaynaa ololaha yaga inaannu markaa idinla qaybsanno oo idinla wadaagno allahu akbar Rajo soo baxo bismillaah waxaan ku hadlayaa afkii dhalinyarada ee xaafadda
انت كبعدي وحوي إن شاء الله بإذن الله الكريم دورشة الوغر كان أصارا عندنا التلمامي ما يددك وحوي مدحتوه غفت عدكي سالكو دونو لمريا تاور الرضا اللي قلت الله ما يحس بالنمو رجو إن شاء الله بإذن الله الكريم سبلا كانوا رجماها شرفتني نوتمي يا مدحدا أرور كان رجو aad iyo aad baan ugu soo dhawaynaynaa haddii aanu nahay guddida xaafadda iyo dadweynaha xaafaddan dhagax barkata degan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xubnaha baalasha uu ku duulayo walaalayaal cabdilaahi waa nin muwaadi ah ururnimuu doonayaa inuu ku soo baxo wuxuu inooga baahan yahay codka ururnimada ina aynu siino ololihii uu iska daayay la ololeynayay iyo isugu nimaadno barxadan oo balanteenu ahayd maanta in dabaaldegii maanta ururka rajo uu ahaa yoomkiisii uu halkan ku bixinayo sadaqad ugu talagalay dembiga kaga soo kordhaya bixitaanka iyo miisiga la garaacayo dhibaatada ka imanaysa uu ku bedelay inuu dadka maalintaa qalaysiiyo urur siyaasadeedka rajo taa micnaheedu waxa weeyaan marka ay qofku hal siyaasadeed uu leeyahay uu doonayo inuu horumar maro ma hadda inuu meel halka lagu yaacayo ama loo dhibtu ka imanayso inuu moodo in wax laga helayo waxaa jirta meelo khayrku ku jiro oo daarta akhriyata adduunyadaba kuu taraysa wax adigana magacaaga iyo sumcaddaada wax kordhinaysa ururkana waxu taraysa sidaa darteed urur siyaasadeedka rajo wuxuu go'aansaday allahu akbar rajo ha guulaysato somalilan ha guulaysato xaafaddan dhagax barkato ha guulaysato walaalayaal aad iyo aad ba u mahadsantihiin farxad weyn bay ii tahay maanta inaynu geedka haraca leh ee wanaagsan iyo barxadda quruxda badan aanu dadka shacabka ah ee ah runtii muwaadiniintii ugu mudnaa ee wakhti lala qaadan lahaa inaan la kulmo oon halkan aanu maanta ku sheekaysanno arrin aad u weyn bay aniga ii tahay farxad bay ii tahay walaalayaal waxa weeye wardhafoor buu ku yaallaa nin waliba intuu kuu soo jiro ayuu ku soo jirsadaa maanta shaqooyin badan hawlo badan oo dalkoo dhan yaalla aad ogtihiin baa jira waxaannu door bidnay inaynu maanta halkan ku sheekaysanno deegaankan ballaaran ee runtii mudan in wakhti iyo tacab iyo hawlba la geliyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin sidaa sharafta leh ee u soo shirteen maanta walaalayaal soomaalidu waxay tidhahdaa faal caytame falagama dhowro waxaa nala tartamayaa ururo ku astaysan qabaa'il ururo ku astaysan kala qaybinta bulshada ururo ku astaysan inay hanti badanoo hore lunsadeen ururo aan khayr laga rajaynayn horeyna loo arkay kuwa inaad naga door bidaan baannu dadweynaha somalilan dhammaan doonaynaa maanta tartanku wuxuu ka dhexeeyaa ururka rajo oo runtii ah urur warqad cad sita mabda' sita qorshe sita oo maanta waxa uu kaga duwan yahay ururaduna ay caddahay oo ah in raarigaa la wada cararayo mid kaloo ka baydha la waayey oo rajo goostay inuu dadka shacabka ah la fadhiisto xaal waraysto wuxuu ku soo celin karo ku soo celiyo sidaasaannu kaga duwannahay ururada kale somalilan oo dhan waxaannu rabnaa inay makhaati ka ahaato
intaas kadib gudoomiyaha Cabdilaahi Dahab iyo wafdigiisa uu hogaaminayay urur-siyaasadeedka Rajo ayaa waxa ay gaadheen xaafadda Mooga B oo ay halkaasina gaarsiiyeen deeq kala duwan waxaana si weyn halkaas ugu soo dhaway dadka deegaanka iyagoo ku farxay in urur-siyaasadeedka Rajo maalintiisa oo Allah u bedelay maalin khayriya dadka jilicsan ay caawinayaan waxaana halkaas ku soo dhaway qaar ka mid ah dadka degan xaafadda Mooga B oo sheegay in codkooda ugu hilin doonaan urur-siyaasadeedka Rajo ee uu hogaaminayay mudane Cabdilaahi Dahab intaas kadib halkaas waxa ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha urur-siyaasadeedka Rajo dadkani marka hore wuxuu u baahan yahay wax qabad wuxuu u baahan yahay wax tar wuxuu u baahan yahay in la ogaado wuxuu u baahan yahay in wax loo qabto wuxuu u baahan yahay in meel la dejiyo waa dad baahi daashatay maanta wallaahi inaanan anigu islahayn cidnaba horta soo dhaweeya waxaanaan ka adkaysanaynin jiirka waanu damqanaynaa maxaana lagu ilaabay baanu leenahay inuu gudoomiyaha iyagana ururkan wax ugu soo celiyo ummadiisa ma doonayno nin jaabka wax gashada oo ummadda markaa ku tacadiya xagga dulqaadka iyo muxuu ahaayey mas-uuliyaddana waxaannu doonaynaa nin dulqaad leh inuu soo baxo oo aad doorataan codka xagga madaxweynaha oo idin danaynaya oo miisaan leh oo idin maqlaya oo wax idiga dhegaysanaya oo waxaa markaa ummaddana iska ilaalinaya ayaannu doonaynaa kaana inaad codka siisaan dadkiisa in loo abaalgudo maanta waynu ognahay oo haddaynu nahay innagu indheebiiga barakacyaashan haddaynu halka yaalla 14 sannayn halkaan naallay wax baahiyeenna isagoo muraadkiisa doonaya yidhaahday doortoo marka dambena dhabarka inoo soo jeediyin baynu arki jirnay ninkani maanta waxaan ku idhi isagoon cusub weli soo bixin ayuu danyartii ka bilaabay inuu baahidoodu wixii ka dabooli karo ka daboolo taasina wax ilaahay in laga haado kulashaan isugu nimidnay waa inaynu bulshada ku booqanno deegaanadoodii Rajo maanta waxa uu u doortay maalinkii labaad ee ololaha in muwaadiniinta loogu tago xaafadooda shucuurta lala soo wadaago goobahoodana lagu booqdo farxad bay noo tahay inaannu maanta idinla joogno waxa kaliya aan codsanaynaa waa codkaas cidna maaha waa urur u tartamaya inuu noqdo xisbi oo bedeli doona saddexda meesha joogta haddii aan la yidhaa intaana waxay ku xiran tahay dadaalkiinna hadba si aad u dadaasheen siyaasadeedka Rajo wuxuu go'aansaday inuu isagu u tago dadkiisa jilicsan uu booqdo uu la sheekaysto uu xaaladda ureereeyo ayuu ururkan go'aansaday wixii uu awoodi karana inuu ku caawiyo annaguna waxaan maanta idinla codsanaynaa inaad codkiina isbeddelku idinku dan idin yahay marka fursadda labaad iyo kaarka labaad ayaan idinka codsanaynaa oo dadka qaarna ay u yaqaanaan codka hoose waxaana lagu codaynayaa cadceedda liiska ururada waa lambarka labaad waxa ka sarreeya oo keliya hal mid waana ka labaad marka intaasaan idinka codsanaynaa maanta waxaannu idin xasuusannay oo aanu go'aansannay inaanaan idiin soo saarin meeshii dadku ku haraagayeen gabagabadii waxaa la hadlay dadka ku dhaqan xaafadda Mooga B gudoomiyaha urur-siyaasadeedka Rajo mudane Cabdilaahi Dahab oo ka warramay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta dadka waxaanu sheegay in siyaasadda urur-siyaasadeedka Rajo ay tahay tirtiridda qabyaaladda horumar Soomaaliland ay gaadhay sidoo kale badhaaro iyo sidii dadka la isugu wadi lahaa waxaanu sheegay in urur-siyaasadeedka Rajo uu hormood u yahay mustaqbalka ifaya ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu yidhi wanaag iyo sharaf bay ii tahay maanta inaan halkan idinla joogo oo aan idinkula sheekaysanno annagoo rajaa oo aynu wax isku weydiinno oo aad nooga xaal warrantaan deegaankan iyo dhibaatooyinka ku hareeraysan oo runtii ka muuqda u baahan in lala soo gaaro gargaar noocuu ku yahayba halkan waxaan baaq uga dirayaa dhammaan cid walbay khusayso halkan waa Mooga B soma Mooga B baynu joognaa Mooga B iyo Mooga A labadaba waa shacabka degan runtii duruufo badan baa soo maray waxaan u baahannahay in duruufaha lala qaybsado waxbarashadii lala qaybsado biyihii lala qaybsado cuntadii lala qaybsado dadka wax la soo gaarsiiyo qabyaaladii cunto ma noqoto kala qobqob cunto ma noqdo waxtar ma noqdo waxtar runa bay u baahan yihiin
baaxmisharkaan la hadlayaa hay-adaha la hadlayaa xukuumadda waxaan ku dhaliilayaa in wax badan oy qaban lahayd ay deegaanka ka maqan yihiin waxaan leeyahay deegaankani baahi badan buu u qabaa in aad loo eego waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay hooyooyinka halgamaya ee runtii noloshan sidaasa ku dhex halgamaya ee ka sameeyey nolol qurux badan ka sameeyey aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay uguna mahad celinaya walaalayaal ururkan rajaa la yidhaahdaa magaciisay ka muuqataa waddani ma aha kulmiyo ma aha ucud ma aha waa rajo taa ku biyo cabba rajaa lagu soo saarayaa meel lama hoos tagto kulmiyana ma hoos tagto waddanina ma hoos tagto ucudna ma hoos tagto rajo waa xisbi doonaya inuu dalka hoggaamiyo weeye meeshan aannu joognaa waxa weeye waa dhulkayagii waa dadkayagii annagaa doorannay maanta inaannu halkan la joogno maannu dooran inaannu beertii xorriyadda idinka soo salaanno waxaannu doorannay inaannu halkaa idinku nimaadno guryihiinna idinku nimaadno idin xaal waraysanno dabadeetana aannu idiin sheegno in maanta rajo ay u baahan tahay codka labaad soo nasiin maysaan halkaasaannu idinka rabnaa codka labaad baannu idinka rabnaa waxa weeye faalcaytame af lagama dhowro meeshan ninna nin uma shaqeeyo nin waliba isagaa dantiisa wata rajo iyadu waxay doonaysaa inay xisbi noqoto aad iyo aad baan idiin barbartaaganahay u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka dahabalaas maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121